shirweynaha nabadeynta Soomaaliyeed ee Carta markii sida rasmiga loo furay wejiga koobaad ee shirka labadii bishii Mee sanadkii 2000 waxa kolkiiba loo fadhiistay hawlaha turxan bixinta khilaafyadii iyo qordofooyinkii muddada dheer beelaha dhex yeelay si loo sameeyo dib u heshiisiin dhaba oo gunta ka dhayda boogaha ay kala tirsanayso ummadda Soomaaliyeed hawlahaasi ayaa muddo 3 toddobaad u socday hoggaan dhaqameedyada iyo duubabka oo ah horjoogayaasha beelaha iyadoo hawshaasi ay ka koobnayd laba arrimood oo isuwan oo laga sugayay inay dhamaystiraan madax dhaqameedyadu labadaasi arrimood ayaa kala ahaa in hoggaan dhaqameedyada iyo duubabku ay meel mariyaan dib u soo celinta nabadda iyo dib u heshiisiinta iyo in madax dhaqameedyadu ay soo xulaan ergooyinka iyo siyaasiyiinta ka qayb qaadanaya hawlaha culus ee wejiga labaad ee shirweynaha nabadeynta Soomaaliyeed ee Carta hawlahaasi oo ku dhawaa waqtigaasi maalmihii u dambeeyay ee la soo gabagabeynay ay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele la yeeshay hoggaan dhaqameedyada iyo duubabka Soomaaliyeed kulan ku saabsan mahadcelin iyo qiimeyn la xidhiidha hawlihii la soo qabtay iyo in la tilmaamo hawsha culayskeeda madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa soo gaadhay goobta ay taalo gogosha Soomaalidu ee teendhada nabadda ee magaalada Carta iyadoo ay ku soo dhaweeyeen halkaasi xubnaha guddigii reer Jabuuti ee qabanqaabada shirweynaha nabadeynta Soomaaliyeed ee Carta kulankaasi waxa ka qayb galay dhammaan hoggaan dhaqameedyada iyo duubabka Soomaaliyeed ee Carta u fadhiyay waqtigaasi in dib la iskugu talo dadka Soomaaliyeed ee kala irdhoobay si loo soo afjaro colaadaha muddada dheer afeeyay bulshooyinka Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan gudoomiyaha guddigii reer Jabuuti ee qabanqaabada shirweynaha nabadeynta Soomaaliyeed ee Carta ahaana waqtigaasi wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Cali Cabdi Faarax ayaa bilaabay hadalka hoggaan dhaqameedyada Soomaaliyeed waa salaamantiin waxaa noo farxada inoo sharafa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele madaxweynaha Jabuuti oo inagu sharfay inuu noo yimaado salaamo hoggaan dhaqameedyada Soomaaliyeed ugu mahadnaqo hawsha fiican ballaaran ee muddadii gaabnayd ee shirkoogu halkan ugu socday ay ku gaadheen gurihii badnaay ay gaadheen markuu natiijadii shirka hoggaan dhaqameedyada Soomaaliyeed uu arkay ayuu garowsaday madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele in hoggaan dhaqamada uu yimaado uu mahadnaqo uu mahadsan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa tilmaamay in hawshu ay laba u qaybtamaysay bilowgeeba hawsha hoggaan dhaqameedyada iyo duubabka iyo hawsha siyaasiyiinta iyo ergooyinka la soo xulanayo u taala waxa aan arkaynay hawsheenu bilowgiiba inay ahayd laba inay u qaybtamayd labay u qaybsanayd oo labadaasi waxay ahayd hawsha hoggaan dhaqameedka iyo duubabku ay leeyihiin iyo hawsha siyaasiyiinta iyo ergooyinka la iska soo qabani doono u taala hawsha duubabka iyo hoggaan dhaqameedka haddii ay salaadiinta qaarkood ay ka cawdeen ay yiraahdeen hore baa la nooga xiray waxa aan u aragnay inay hawsha ay qabanayeen shaqo weyn ay ahayd shaqadana inteedii badneed inay soo guteen waxaan u aragnay in hawsha hadhayna intii in la eg ay baaxad leedahay annagu ay noo muuqato waqtiguna uu socdo in ay ka habboon tahay inay iyadii oo wixii hadhay la dhammaystirayo haddana hawsha inteedii kale aanan la seexinin ama aan la jaamudinin ee iyadana la gudagalo oo iyadana iyadoo waqti la iska halaynin hawsha kalena la galo ayay annaga noogu muuqata waa ka cudur daaranaynaa haddii ragga qaarkiid ay yani u arkeen inaan xoogaa dadejinayno ma aan dadejinayno awalkiiba Soomaalidu waxayna tiri gogol haddaad dhigayso u sabir yeelo oo daa saacadna ha u qaban waqtina ha u qaban hore baa la ii yidhi oo taas waan xafidsanahay
hase yeeshee haddana waxaa loo baahan yahay in saacadihii la eego waqtiga la eego hawshana sugaysa la eego ummadda Soomaaliyeed ee cabanaysa ee ooyeysa qalbiga ka ooyeysa niyad jabka ku dhacayna imika la moodo inay hanqalka la soo kacday oo ay isleedahay maanta ma helaysaan nabad ma helaysaan xeer ma helaysaan sharci ma helaysaan dawlad ma helaysaan qaanuun lagu kala shaqeeyo ninka dukaankiisa magaalada bartankeeda kule xoolihiisa oo dhan u yaalaan soo xiraya ee gurigiisa oo 5 kilometer u jira tagaya ee seexanaya waxa uu ku talagalay waa dawlad weey haddii taa la waayo waa inuu dhex socdaa oo qorina haysta isagiina waxa dadku u haraadsan yahay waxa weeyaan nidaam iyo dawlad weey taasna qaraarada halkan aad ka qaadanaysaan bay ku jirtaa ragga duubabka ah iyo hoggaan dhaqameedyadana hawsha aan saarnay tu yar ma hortaba inay beelaha ay dib u heshiisiyaan iscafiyaan isku garowshadaan dadka tilmaam u noqdaan u sheegaan in ma garanaysaa wixii dhacay ninkii ka mas'uulahaaba yani maanta in laga soo laamo biyada dibadabadood qabay baa la yidhi in la yidhaahdo wixii hore ha laga tago walaalnimadii ha loo soo noqdo dadku dad kala tagaya ma aha ilaahay baa ummad quraata ka dhigay ilaahay baa isla dhaliyay ilaahay baa meel ku wada abuuray xidid iyo walaal iyo abti iyo seedi inta way isku yihiin marka maantana way wada nool yihiin si ay ku wada noolaadaan laakiin inay dadka tilmaamta u ah hoggaanka u ee hoggaan dhaqameedka u inay tusaan tilmaam noqdaan yiraahdaan annaga heshiiska abuurnay annaga iyo wixii iscafayna annaga isku garawye sheeganayna annaga wax isku celinayna annaga iyo ummadii aan hoggaaminaynay midaynay inay yiraahdaan oo nabadii iyo dib u heshiisiintii soo celiyaan hawsha u taalay duubabku taabay ahayd in badan yaa la soo qabtay aad baan ugu faraxsanahay waxa aan kala on sheegaynaa inaan ognahay in toddobaadkani hawl badan oo aad u ballaaran aan ku guda jirnay sidee aan iskugu keeni lahayn dadka iyo dadka ay wax ka sheeganayeen dadkii ay wax ka sheeganayeen in dadaal weyn ay galeen niyad samina ay muujiyeen walaalnimana ay muujiyeen ayaguna inay qaarkood weli xoogaa yara mutaraddid yihiin laakiin waxaan ku rajo weynahay in quluubtoodu ay isku soo dhawaato in walaalnimadii laga taliyo in xumihii laga tago aan ku rajo weynahay ayaamahani waxaan rajaynaynaa in aanan gelin xadiiskii uu sheegayay sheekhu aayaddii qur-aanka ahayd uu sheegayay ee lahayd haddii in ay nabadda diido ha lagu duuladiibaan intaan ilaahu naga badbaadi baan leenahay oo xagga hore ee nabadda walaalnimada aan ku joogno baan leenahay intaasi waxay ahayd hawshii u taallay duubabka iyo hoggaan dhaqameedka inteedii badnaydna waad soo dhammayseen baan leenahay oo waan idinku hambalyeynayna maanta waxaa idiin haray intaa yara hadhay inaad dhammaystirtaan talabaadna inaad ergooyinkii aad samaysaan hawl adag weeyaan oo inaad dayalsataan looma baahno waxaan u leenahay xilb weeyaan dadka aad ergada ka dhigtaan ayaad xilkii u dhiibaysaan dadka aad ergada ka dhigtaan ayaad mas'uuliyadda waddanka dib u dhiskiisa dib u heshiisiintiisa aas-aaska waddanka dhismihiisa dadka aad u dhiibaysaan inaad eexataan looma baahno in aad nin hunguri lahoo wax boobaya oo wax doonaya oo zacaamo doonaya inaad kula orodaan ma aha in aad ka alla ka cabsiga leh ka waddanka jecel ka u dulqaadka badan leh ka dadkiisa jecel ee dalkiisa jecel isku hibaynaya inaad ka doorataan haddeer waxa aan maqlayay 3 maalmood halana siiyo haddii aan hoggaan dhaqameedyadii nahay waxba kama qabno 3 cisho laakiin waxaan codsanaynaa annaguna hala noo yeeladi waxa aan codsanaynaa waxa weeyaan
in aad waqtigaa aad ka faa'iidaysataan oo waqti ina dhaafin labadii hawloodba aad isgarab wadaan in wixii hadhay aad dhammaystirtaan oo cabashadaasi odayadii iyo duubabkii hoggaan dhaqameedyadii salaadiintii ogaasyadii arrinkii ugu horreeyeyba way dhaafi la'yihiin inaan lana odhanin taas calool xaadhashada iyo wanaagdoonka iyo musaalaxaddu wixii hadhay inaad dhammaystirtaan ayaan doonaynaa waxaanan doonaynaa inaad qaa'imadihii ku qornaayeen ergooyinku aad noo samaysaan wixii joogana aan hayno wixii naga maqanna aan doonno hawshiina toddobaadka dambe hadduu alla yidhaahda shirweynihii kale ee ergooyinka aan furi karno ayaan idin weydiisanaynaa annagu iyagaana maanta beelaha madax u ah iyaga iyaa beelaha matala iyaga iyaa garanaya kii caqli leh kii talo leh kii dadka isku xidhiidhinaya intaba iyagaa garanaya maantana dariiqa ay ka bilaabeen saddexdaa cishe aan joogno waxaa muuqata inay tahay meeshii ugu fiicnay dad muslimiina inay yihiin yaa noo muuqata in dad dalkooga jecel yihiin yaa noo muuqata in dad dareensan inay meeshaasi dhibaato jirtana waanu aragnay diyaarna u ah inay intuu ay karayaan iyagu daweeyaan magaalada carta hoggaan dhaqameedyada iyo duubabka ayaa soo gebagabeeyey shirarkii isdaba joogga ahaa ee dib u heshiisiinta beelaha madax dhaqameedyada iyo duubabka ayaa ku guulaystay inay soo afjaraan colaadihii beelaha ee sida weyn u ragaadiyey ummadda Soomaaliyeed hoggaan dhaqameedyada iyo duubabka Soomaaliyeed ayaa qalinka ku duugay dib u heshiisiinta rasmiga ay gaadheen iyadoo tallaabadaasi ay ka turjumaysay habsami u socodkii hawlihii dib u soo celinta nabadda ummadda Soomaaliyeed Antoine Michel oo ka mid ahaa guddigii reer Jabuuti ee qabanqaabada shirweynihii nabadeynta Soomaaliyeed ee carta ayaa madasha ka akhriyey qodobadii lagu heshiiyey hoggaan dhaqameedyada Soomaaliyeed kadib markii muddo ka badan bil ay ku shirayeen magaalada carta jamhuuriyadda Jabuuti waxay ku heshiiyeen kow nabad iyo dib u heshiisiin guud oo dhex marta dhammaan beelaha Soomaaliyeed guud ahaan iyo kuwii colaadu dhex martay gaar ahaan laba in ummadda Soomaaliyeed wada dhisato dawlad qaran oo loo dhan yahay saddex in midnimada Soomaaliyeed tahay lama taabtaan afar in la isu celiyo wixii hanti guurto iyo ma guurto ee la kala haysto ha ahaato mid qaran ama mid gaar ahaaneed hawshana waxaa fulin doona maamul dawladeedka la dhisi doono haddii alla idmo shan in la ilaaliyo lana dhowro xuquuqal insaanka lix waxaa beesha caalamka laga codsanaya inay taageerto shirka dib u heshiisiinta Soomaaliyeed ee ka socda magaalada Carta ee Jamhuuriyadda Jabuuti aqoonsatana dawladda dhismi doonta haddii allaha awoodda lihi ogolaado markii dib u soo celinta nabadda iyo dib u heshiisiinta la go'aamiyey ee la gaadhay maslaxad lagu wada qanacsan yahay waxaa loo guntaday sidii hogaamiye dhaqameedka iyo duubabka Soomaaliyeed ay u soo diyaarin lahaayeen liisaska ay ku qoran yihiin ergooyinka oo ah kuwa u xil saaran ay ka talinta qarankii Soomaaliyeed ee burburay madax dhaqameedyada iyo duubabka Soomaaliyeed ayaa ugu ballan qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele markii uu kulanka la yeeshay inay u hawlgalayaan soo xulidda ergooyinka beel kaste ku matali doonta ka qayb qaadashada wejiga
wejiga labaad oo ah wejiga siyaasadda ee shirweynaha nabadeynta Soomaaliyeed ee Carta. intaasi kadib waxa la sugaaba waa dadaalka xoogga leh ee waqtigaasi ay guntiga dhiisha iskaga dhigaan madax dhaqameedyada iyo duubabka Soomaaliyeed sidii ay u soo bandhigi lahaayeen liisaska rasmiga kama dambaysta ee ay ku qoran yihiin ergooyinka Soomaaliyeed si loo diyaariyo inta joogta inta maqalna loo doono sidii uu tilmaamay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle kadibna loo furi karo wejiga labaad ee shirweynaha nabadeynta Soomaaliyeed ee Carta. dhinac kale dadweynaha reer Jabuuti iyo gaar ahaan gudidii qabanqaabada shirweynihii nabadeynta Soomaaliyeed ee Carta ayaa toban jibaartay hawlaha qabanqaabada iyo nidaaminta gogosha shirweynaha iyadoo si xoog leh ay u soo biirtay waqtigaasi tirada dadka Soomaaliyeed ee ka qayb qaadanaysay shirweynaha. ururka qaran ee haweenka reer Jabuuti ee UNFD iyo marwada koobaad ahna gudoomiyaha ururka qaran ee haweenka reer Jabuuti Marwo Khadra Maxamuud Xayd ayaa si joogta ugu hawlgashay waqtigaasi maareynta iyo nidaaminta hawlaha gogosha nabadda. waxaana si wanaagsan loo qabanqaabiyey hawlaha soo dhaweynta walaalaha Soomaaliyeed ee ka qayb qaadanaya shirweynaha iyadoo si wanaagsan loogu xasiliyey nadaafadda iyo gogosha guryaha la dejiyey cunnada caafimaadka gaadiidka iyo guud ahaan daryeelkooda la xidhiidha ka qaybgalka shirka. inkastoo dhaqaalaha jamhuuriyadda Jabuuti uu waqtigaasi koobnaa haddana dadweynaha reer Jabuuti iyo madaxdooda ayaa aaminsanaa in la gudanayo waajib mudan in nafta loo huro oo ah dib u yeegleelidda qarankii Soomaaliyeed ee burburay. kusimaha waqtigaasi ee ra'iisul wasaaraha Jabuuti ahana maamulaha diyaarinta iyo nidaaminta gogosha Maxamed Barkad Cabdilaahi ayaa waqtigaasi nooga waramay diyaargarowga loo galay dadkii tirada badnaa ee ku soo qulqulayay madashii shirweynaha. run ahaan waxa weeye horta tirada loogu talagalay dadweynaha ummadda Soomaaliyeed ee ka soo qayb galay shirkaasi ilaa iyo maalintii shirkaasi bilaabmay ilaa maanta way iska soo daba dhacayaan taas oo aad iyo aad u dhaaftay tira ahaan wixii aan ku talagalay. marka u horeysay waxay ahayd ilaa 800 oo qof inay ka soo qayb galaan go'oldhigii hore ee dib u heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed. taasi run ahaan waxay gaadheen dadku ilaa 1200 oo qof bay gaadheen taasoo jirto dad ku qoran liisaska dadweynaha ka qayb galaya iyo kuwa badanoo iyo kuba iska imanaya. imika ahaan waxa dhacday faaskan labaad oo loo gudbay xagga siyaasadda ergooyinka loogu talagalay shirka ilaa 900 oo qof ayaa lagu qararay ahayd haddana ilaa 2000 waa la gaadhay. taasi run ahaan dhibaatadeeda ayay leedahay hase yeeshee madaxweynuhu mudane Ismaaciil Cumar Geelle shirkii u dambeeyay uu ka soo qayb galay wuxuu ku sheegay inkastoo ay ummadda jamhuuriyadda Jabuuti culays ku tahay shirkaasi dadka faraha badan leh ee ka soo qayb galaya haddana wuxuu yiri idin eegi mayno hadday noqoto xagga tirada iyo hadday noqoto xagga waqtigaba idin eegi mayno buu yiri. taasi oo kalgacayl gaara u fidiyey ummadda Soomaaliyeed. wax walba waxa ka weyn kalgacaylka aan u qabno ummadda Soomaaliyeed iyo sida madaxweynahayagu iyo ummadda reer Jabuuti ay u jecel yihiin inay nabad kaamila ay dadkaasi gaadhaan. gees kale haddaynu ka eegno arrimaha shirweynihii nabadeynta Soomaaliyeed ee Carta looma kala hadhin xagga fanka iyo suugaanta oo saameyn weyn ku lahaa dardargelinta hawlaha shirweynaha. waxaa waqtigaasi ka qayb galay fanaaniin hal abuur maanseyahan iyo abwaaniin Soomaaliyeed oo tiro badan gaar ahaan kuwii ugu cadcaddaa saaxadda fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed iyagoo door aan la qiyaasi karin ku lahaa dhinacyada bogaadinta wacyigelinta waanada wax isku sheega iyo caqli celin. وانا لما هراني